horta aniga meel baa igu taagan anuu Sheekh Xasan Deeya waa maartay magaalada la yiraahdo Hargeysa oo runtii ahayd meeshii aan foonfoorkina ka baxay iskuulkii Feras Julaal la oran jiray ee magana jaamacada Hargeysa la yiraahdo foonfoorkii ugu horeeyay ka baxay baan ahaa 74kii marka magaalada Hargeysa oo runtii maartay in badan aan ku noolaa waxaan dareemayaa inay ka hadhay 30 sano iyadoo marayno Soomaaliland maarad goosashadii kadib 30 sano inaan Hargeysa wax tallaabo ah haba yaraatee oo kor loogu qaadayo dhismaheeda xagga wadooyinka biyaha ee maarataanay hantidii ummadda waxa soo dhan aan waxba maanta aan gacan lagu haynin ayaa mar walba igu taagan talabaad igu taagan waa warshadii sibirka ee Barbara oo yadna gacanteena ku burburtay oo la iibiyay maantana dir dhabo samaysa sibirka balse haddaan ku bilaabay Hargeysa waxaan leeyahay magaalada Hargeysa waanu sheegay rag badan oo dawladda kamid ah wasiirada kamid yihiin inay magaalada si dulman tahay runtii ana xaqiiqo aad bay u dulman tahay ninkii dhowr 60 hees jiray yiri dhulka oo aamu waa loo iman aamu laha waxaan silmada Hargeysa sheegay laakiin ya Hargeysa u yimiday wali dhulkii waa lagu iman taa laha aawiya u yimiday wali Hargeysa 74kii wadooyinkan ku aqaanay uun baa wali sidii ah 74kii misaa ka sokays 40 sano wax ku dhow iyo siyaado marka waxa weeye waxaan leeyahay maanta ididiilada soo baxay waxa kamid ah wiilka dhalinyarta Cabdikariim Axmed Mooge ilaahay maarad khayraasiye iyo rag la shaqeynaya ee localka ah ee loo doortay Hargeysa waxaan leeyahay war wax walba Hargeysa ka horeysiya wax walba Hargeysa ka horeysiya oo nadaafadii durba waad bilowdeen si fiican baad u wadiin iftiimintii iyo leerarkii waa si fiican baad u wadiin saan la socdo waxa aniga aan aad u arkayaa inaad qayladaan xoog la u dirtaan oo Hargeysa maartay in loo gurmado ah bacmashtarkeeda waaweyn sida Dahabshiil iyo Telesom iyo ragga waaweyn ee bacmashtarka saraha waaweyn ka dhistay maartay wadada madaxtooyada ee maartay sarahooda aad u ilaacayaan ilaa iyo maartay talaga gaaro halkii traffic laga sameeyay Dahabshiil uu leeyahay kolka inta ku dhex marto marna sarahaad eegaysa quruxdooda marna waxa eegaysa wadada aad marayso marka way keeni waayeen waxaan leeyahay waa in la iswaafajiyo saraha quruxda badan ee waaweyn iyo wadooyinka oo laami madow laga dhigo oo ciidda laga biyo oo godadka laga biyo oo wax la yaab leh anigoo ku socda Barbara ayaa waxaan ka galay wadada maartay istabta gabil u soo baxda ayaan ka galay anoo sii socona oo ku socona maartay Barbara Hargeysa dhan si dhex marayna kolkii aan wadadii wanaagsaneed ee gabil aan ka tagnay ilaa iyo maartay istabta aan gaadhnay kolkaan istabtii dhaafnay waxaan la kulannay ajaa'ib maanta oo dhan waxaan ka bixi weynay yaana maartaanay god iyo maartaanay wadada laga leexdo iyo maartaanay iyo yaan ka bixi weynay ilaa iyo aan ka baxaynay istabtii kale xaga bariga ee meesha la haleeyo la yiraahdo marka waxa weeye anu horta waxaan leeyahay Hargeysa haday wada tahay haday biyo wali dameer dhaaminayo oo boodina dadka ay jirayaan tahay waxaan leeyahay Cabdikariim iyo rag la shaqeynaya iyo xukuumaduba caasimada ha u soo jeesato oo ha u fool dhaqdo oo ha ka miiso maartay wajigeeda waxa foolxumada ku taala taas inta u dhaafi maayo in badan baa waxaan ka xishooday inaan ku celiyo Hargeysa iyo dhibta haysata anu boorma u hadli maayo gabilay way wanaagsan tahay Barbara way wanaagsan tahay Burca wayna dhaantaa Laascanoodna dhaantaa laakiin meesha laba meelood dhintay waa Booram iyo Hargeysa laakiin Hargeysa ay ugu sii daran caasimada taaya waxaan leeyahay ilaahay garabkaaga ha galo Cabdikariimow adiga saaxiibada waa inaad muddadaad meesha joogtaan magac kaga tagtaan insha Allah taala taasaan ku soo koobaya qodobka labaad waxaan ka hadlayaa baarlamaanka cusub ee hadda la doortay محافظ أما هذا أما معارض هذا أنا واسقو كيمد وعن كربا دانيه ودن كان إن عنتا كل دكتان
oo idaan u shaqaynin caloolihiinna iyo mishaarkiinna iyo maaragtay gacanta wax la idinku rido oo aamusa la yiraahdo idaan u shaqaynin ayaan rabaa waxa weeye taasi beelaha badan baa maanta yaala wadanka oo 30 sano laga hadli laayahay wax laga qaban waayay bal wixii gacanta inoogu jiray ayaa dad kale la siiyay dekadii barbaradoo kale oo niman carab iyo indhayar ay ku shaqaysanayaan isbuuc walba intaas oo milyan ka direen u dirayaan hargeysina u baahan tahay maaragtay barbar u baahan tahay dadka kale u baahan yahay anigu waxaan leeyahay baarlamaanow hawlo badan baa idin sugaya hawlo badan ayaa idin sugaya anu dooni maayo hebel baan u doonayaa gudoomiye iyo hebel baan u doonay laakiin yaa anfacaya wadanka in la dhaawo weeyaan la waxana waliba leeyahay odayaasha gaboobay gulayaashii maxamed siyaad barre kamid ahaa maarataanay wadanka soo daashaday meesha lagu celinay laga daayo dhalinyar loo dhibo meesha saan meeyaradaas oo kale dhalinyar wadanka loo dhibo baarlamaanka lafta waxaan rabnaa rag dhalinyar oo mutacallimiin oo wadaniina ay loo dhiibaan rabnaa ya haddii la leeyahay reerkaas la siinaya reerkaas waa inay keenaan ninka ugu fiican ay la doortay waa inay meesha u doortaan inay u dooranin keeba xagga madaxtooyada wax inoo keenay kale iyo keeba maartaanay yani wayna oranin taasina waxaan leeyahay baarlamaanka waxaan leeyahay danta ummadan hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadday maartaanay tahay maartaanay cadaaladda iyo maarta wax tahay haddii ay tahay hantideena dibadda lagu shubanayo gudihiina uu raadan yahay laga dhibaataysan yahay waa in ayadna gacanta lagu dhigaa baarlamaan idinkana ka mas'uula idinkana ka mas'uula ilaahayna idin weydiin doona cid aad u dooranaysaan waayo nin aan meesha u qalmin marka loo doorto ninkii u qalmayna la dhaafo taasi ilaahay baa kula xisaabtamay taana halkaas aan ku dhaafaya waxaan u soo noqonayaa nimanka maaragtay baarlamaanka tagay gobolkan ka socda awdal la dhaafto waxaan iyaga leeyahay amaam mucaarad ka soo bax amaam muxaafid ka soo bax anu waxaan idinka rabaa inaad gacan kaliya noqotaan gobolkani wuxuu idinka baahan yahay midnimo idinka baahan yahay ciddii anfacaysa ummadan Soomaaliland la dhaado taageera ciddii awdal anfacaysa taageera gobolkuna wuu la xisaabtamay anu kulli dadka xisaabtamayaan ku jira la xisaabtamaya waayo ilaa goormaan ku jirayna dad 15 sanadood la fadhiya oo waxun cunayo waxun cabay ya marka waxa weeye waan lahay waa inaad noqotaan midalan gacan qura waa inaad noqotaan gacanta qura maxay tahay wixii gobolkan u dana idaan isku raacdaan oo idaan u kala hadhin wixii gobolkan u dana inaad isku raacdaan ama mucaarad ku jir ama muxaafid ku jir laakiin boor waxaad ka rabtaa ama gobolkan wadil ka rabaa midnimo gacan kaliya tiin sidaas aad wax noogu qaban kartaan gobolkan wuxuu doonay u qaban kartaan ummadana waxay doonaysaa u soo fulin kartaan